بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالكا xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho salaadiinta dhaqameedyada haweenka Soomaaliyeed saxaafadda iyo dhammaan dadka halkan isugu yimid oo ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida Bombeyda iyo dhammaan shacabka gobolka Banaadir waxaan marka hore idinku salaamay salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز لباد وحفر حد إنه إن كلا صقيب قالنا جوا كبنادر حفلة سيدا قرح بدن لوسو أقاسمي. أنا هذا فرح سنة هاي إن كلا صقيب قالنا مدحوينا جمهورية فدرالكا يدمان شعبك صوماليات وآد وأركي إفتين كدولة نمدا. sida aan maanta isugu nimid Sheekh Bashiirna uu hore noogu sheegay maadaama ay bil Ramadaan ah tahay bil barakaysan waxaan codsanaynaa marka hore inaan kulligeen isu tanaasulno Ilaahay barino dalkeennana aan Ilaahay u barino waxaan codsanaynaa oo kale in bishani ay tahay bishii barakaysneed oo Ilaahay ducadeena uu ajiibayay sidaas daraadeed walaalayaal oo aan kulligeen dalkeena u wada duceyno sidaan hore ula wadaagnay ummadda Soomaaliyeed qorshaha xukuumadda waxaa saldhig u ah qodobo ay ka mid tahay ka guulgaarista xasiloonida guud ee dalka gaar ahaan sidii loo sugi lahaa amniga waxaa kaloo saldhig u ah kobcinta dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqooyin lana dagaalamo musuqmaasuqa sidaas daraadeed waxaan maanta halkan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo waxqabadka xukuumadda inagoo jirnay 60 maalmood kaliya xukuumaddu waxay jirtaa 63 maalmood sidaas daraadeed waxaan rabaa in idinka iyo madaxweynahaba hortiina aan ka cadayno maanta waxyaabaha inoo qabsoomay kow xukuumaddu waxa ay bilowday shaqo iyadoo dalka ay ka jirto abaar aad u baahan waxaan bilownay inaan isugu yeerno shacabka Soomaaliyeed sidii isugu gurman lahaayeen waxay shacabka Soomaaliyeed ku guuleysteen kaligood inay aruuriyaan in ka badan 5 milyan oo dollar lacagtaasi oo dadka Soomaaliyeed u aruuriyeen 20 waa markii ugu horeysay oo dadka Soomaaliyeed ay sidaas u aruuriyaan dhaqaale ay iyagu isugu gurmanayaan taasi waxa ay qayb ka tahay bilowga dawladnimada amaanada shacabka Soomaaliyeed waxa la gaarsiiyay dhammaan gobolada dalka oo dhan waxa arrinkaas nagu caawiyay dumarka Soomaaliyeed culimada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee dawladda xukuumaddu 60 maalmood ay jirtay waxa ay ku guuleysatay in qof walba oo u shaqeeya dawladda in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyay mushaarkii uu xaq u lahaa iyadoo aanan helin dhaqaale aan ahayn kanay inta badan bixiyaan shacabka Soomaaliyeed waxaa lagu guuleystay inaan xaqiijino amaanada aad noo dhiibatiin haddii aad tihiin shacabka Soomaaliyeed hadda waxaan bilownay inaan bixino mushaaraadka bisha shanaad maadaama aan bixinay mushaaraadkii 4 bilood oo la soo dhaafay waxaan rajo ka qabnaa in aan awoodi doono in qof waliba uu heli doono waxa uu xaq ugu leeyahay dawladda bilaha iyo sanadaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guuleysanay inaan oodno albaabo badan oo u furnaa dawlad xumo iyo musuqmaasuq waxaan kor u kacay dakhligii soo geli jiray dawladda waxaan dib u habayn lagu sameeyay qaabka loo maareeyo bixitaanka qarashaadka dawladda oo dhan waxaan bilownay inaan ka shaqeyno sidii la isugu keeni lahaa khubaro nagala shaqeysa kobcinta dhaqaalaha dalka oo dhan waxaan bilownay habraac lagu nidaaminayo canshuuraha dalka iyadoo lala kaashanayo dawlad goboleedyada waxaan bilownay jidkii Soomaaliya looga deyn lahaa deynta lagu leeyahay oo dhan 5.5 milyan oo dollar haddii
aan dadaalno waxaan ilaahay hadduu yidhaahdo arrinkaasi ku dadaali doonnaa in sanad iyo bar gudahood aan ku soo afjarno deynta lagu leeyahay dalka Soomaaliyeed haddii aan ku guulaysanno waxaa inoo furmaya albaabada maalgashiga in deynta nala ka tirtiro waxaa kaloo oggolaanaysaa inaan dib u yaglalno dowladnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan dowladahan saaxiibka la nahay bilownay inaan kala hadalno sidii aan badeecada Soomaaliya suuq ugu heli lahayn si uu u kobco ganacsiga dalkeenna dhaqaalaha ganacsataduna uu kor ugu kaco arrimaha amniga sida aad ogtihiin hadafka amnigu wuxuu ku salaysan yahay gaaritaanka amni buuxa oo ku baahsan dalka oo idil bad iyo berri miyi iyo magaalo kaasoo sugayana xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta Soomaaliyeed amnigu waa udubdhaxaadka nolosha waxaan bilownay dargargiridda sugidda amniga magaalada Muqdisho iyo qaybo kala duwan oo ka mid ah dalka intiisa kale waxaan bilownay xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada kaasoo ahaa inaan hub waaweyn lagu wada karin magaalada Muqdisho taasoo aan si fiican u fulinay xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darro ah in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dowladdu astaamaysay keliya iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darrada ku haysta ay dowladdu gacanta ku soo dhigto waxaan qaadnay jidgooyooyin badan oo shacabka lagu dhibaatayn jiray waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka Soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaq darro ah arrimaha kale oo xukuumadda u qabsoomay waxaa ka mid ah waxaan dhammaystirnay duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi waxaa kaloo ku guulaysanay in dib loo soo celiyo duulimaadkii habeennimo ee garoonka aadan cadde xukuumaddu waxay ku guda jirtaa dhammaystirka hannaanka lagu maamuli lahaa hawada Soomaaliya uuna dhowaan si buuxda haddii Ilaahay yiraahdo ugu soo laaban doono dalka Soomaaliya arrimaha wasaarad waliba waxay soo bandhigtay qorshaha ay rabto inay hiigsato 100 maalmood oo ugu horeeya iyo sanadka iyo sanadaha soo socda waxaa la dhammaystiray qorshe buuxa oo ay xukuumadda oo dhani ka wada qayb qaadatay waxaa golaha wasiiradu ku heshiiyeen siyaasad guud oo lagu hagayay dalka iyadoo la fulinayo hadafkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa la xoojiyey wada shaqaynta wasaaradahoo dhan waxaa la xoojiyey la shaqaynta adduunyada waxaa kaloo aan u sheegnay inaan diyaar u nahay isla xisaabtan labada dhinacba ah annagana in nalala xisaabtamo iyagana inaan la xisaabtamo waxaa dalka intii madaxweyne farmaajo la doortay yimid wasiirada arrimaha dibadda Ingiriiska Jarmalka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga xogayaha guud ee qaramada midoobay xogayaha guud ee wadamada Afrika iyo madax kale oo aad u tiro badan taasina waxa ay muujinaysaa rabitaanka loo qabo dowladnimada Soomaaliyeed safaradii uu madaxweynuhu ku tegay dalalka dibadda waxaa ka soo baxay guulo waaweyn oo wax ku ool ah oo la xiriira kobcinta dhaqaalaha wax ka qabashada amniga iyo dibdhiska dalka safarada uu madaxweynuhu ku tegay dibadda ayaa waxa ay xoojiyeen xiriirka ay dowladda Soomaaliyeed la leedahay dalalka dariska ah iyo dunida inteeda kale taas ayaa noo sahashay inaan soo celinno safaradii tooska ahaa ee Kenya iyo Soomaaliya taas ayaa noo sahli doonta in badeeco badan oo Soomaaliyeed loo iibgeeyo dalka dibaddiisa waxaan ku guulaysanay inaan adduunyada ula shaqaysano sidii horese ka duwan wada shaqaynta hay'adaha dawladda wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee dawladda oo aad u caafimaad qaba awgeed ayaa waxaan ku guulaysanay inaan dalka u qaadno tallaabo aad u hufan oo ay ka mid tahay in amniga dalka uu ka soo wanaagsanaaday dadka magaalada Muqdisho maanta
ay ku nool yihiin noloshii hore mid ka duwan. maadaama ay xukuumaddu jirtay 60 maalmood keliya ay noo qabsoomeen arrimo waaweyn oo la xiriira dhaqaalaha, oo la xiriira amniga, oo la xiriira dowlad wanaagga, oo la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa, oo la xiriira la shaqaynta dunida, oo ay muuqato iftiin aad u waaweyn oo ah dowladnimo hufan. su-aashu waxay tahay 6 bilood maxaa inoo qabsoomi karaa haddii dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isgarab istaagaan? 6 bilood gudahood waxaa bilaabanaysaa inaan si dhaqso ah cadaaladda wax uga qabanno, inaan wax ka qabanno qorshihii lagu gaari lahaa 2020 si qof walba oo Soomaaliyeed oo codkiisa u dhiibto, inaan ka shaqayno xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, inaan ka shaqayno la shaqaynta baarlamaanka si loo ansixiyo sharciyo badan oo muhiim ah oo dowladnimada muhiim ah. haddii ay 60 maalmood intaasi noo qabsoontay 6 bilood waxaan xoojin karnaa ciidamada xoogga dalka ah oo ah sharafta, wejiga iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan sii hagaajin doonaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan. waxaan sii kobcin doonaa dhaqaalaha. waxaan abuuri doonaa shaqooyin. waxaan dhisi doonaa jidad oo aan bilownay haddaba annagoo kaashanayna ganacsatada iyo gobolka Banaadir inaan bilowno dhisidda jidadka magaalada Muqdisho. waxaan dhisi doonaa isbartiibooyin ka waaweyn tan haddii aan maanta isugu nimid, haddii ilaa yidhaahdo in maanta aan halkan isugu nimid waxa ay ka turjumaysaa sida uu u hagaagay amniga magaalada Muqdisho. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan dib ugu soo celin lahayn warshadaheenna. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan ula wareegi lahayn waxbarashada, una samayn lahayn waxbarasho tayaysan. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u hagaajin lahayn caafimaadka dadka Soomaaliyeed. waxaan ka shaqayn doonaa inaan ilaashanno khayraadkeenna, gaar ahaan badaheenna haddii ilaa yidhaahdo. sidaas daraaddeed waxaan shacabka Soomaaliyeed ku ammaanayaa sida ay noo garab istaageen muddadii ay jirtay xukuumaddu. waxaan u ballan qaadaynaa inaan diyaar u nahay isla xisaabtan, inaan soo hor istaagi doonno mar walba si ay noola xisaabtamaan haddii ilaa yidhaahdo. waxaan idin xasuusinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan in dalkani uu yahay dalka keliya oo aan leenahay, in dal kale aanan lahayn, in dalkani uu yahay ka naga wada dhexeeya, inay nagu waajibtaa kulligeen in dalkan aan hagaajisano. sidaas daraaddeed waa inaan isu tanaasulnaa, waa inaan shakiga ku beddelnaa isjacayl, waa inaan waddaninimadeenna xoojinnaa sida uu nagu hoggaamiyey madaxweynaheenna madaxweyne Farmaajo. ugu dambayntii waxaan idin sheegayaa haddii ay dowladdu hagaagto in macnaheedu ay tahay in qof walba oo Soomaaliyeed ay noloshiisu ama nolosheedu hagaagi doonto. waa mahadsantihiin.